labaatan jir, soddon jir, afartan jir, konton jir, lixdan jir iyo toddobaatan jir oo ugu dambeeyo. Ayagoo waa hooyo cibaado. Waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo qisada aniga iyo gabadheeda. Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Waxaan dhalay hal gabar ah. Gabadheeda waxaan soo marray duruufo kala duwan aniga oo ku soo koriyay duruuf adag, waqti adag. Nolosha ayaa noo saamaxday gabadheeda ceebla inaan isla ekaano. 25 sano kadib waxay noqotay qof wax bartay, meelna iska soo saaro. Waxa ay gaartay waqtigeedii guurka. Waxaana u imaadeen rag kala duwan oo mid kasta uu doonayo inuu nolol la wadaago. Ayadana sida oo kale waxay doonaysay in ay guursato, oo meel degto, oo maxaa la yiraahdaa muuqato, oo iga soo garan muuqato, i garab degto. Anigana aad ayaan uga faraxsanaa gabadheeda in ay mustaqbal ay raadiso. Gabadheeda ayaan u jeediyay hal waano maadaama ay gaartay waqtigii guurka. Waanadaas oo anfacayso haddii aan dhinto iyo haddii aan noolahay. Maadaama aniga aan noqday qof waayeel ah oo noloshiisa aan wax badan u sii dhinayn. Intayda ugu badnaydna ayada aan ku soo bixiyay waqtigeedii aan wax kale ku qabsan lahaa ama horumar kale aan ku sameyn lahaa. Gabadheeda sidan ayaan ku waaniyay. Hooyo, raggu waa 6. 6daas mid ka mid ah ayaad la kulmi doontaa, noloshana aad la qaybsan doontaa. Midka ugu hooseeya haddii aad ka bilowno 20 jir, 30 jir, 40 jir, 50 jir, 60 jir iyo 70 jir oo ugu dambeeyo. 6daasi waxay leeyihiin 6 sifaad oo kala duwan. Haddii aan ku horumarno midka ugu hooseeyo ama ugu yar waa 20 sano jir, waa wiil dhalinyaro ah oo maxay ahayd 20kiisi sano jiro oo haddii aad la kulanto ama aad mustaqbal la wadaagto 3 bay mid noqonaysaa. Inuu ku dilo, inuu ka tago iyo inuu kugu dheelo. Oo 20 jiri 3daas baa laga fishaa. 30 jir haddaad la kulantana mid baa laga fishaa. 30 jir waa sanka hadal oo kibirkii baa sanka u saaran. Wuxuu ku leeyahay na maxaa soo shiiray, na maxaa halkan maray, na maxaa uray, na maxaa kacay. Ay kama hadaadeedu ku jira oo 30 sano oo meeshii nimanka ugu kibirka badan yihiin. 40 jir, 40 jiri xoog buu saaxiib u yahay oo haddii aad hadal la gafto ama aad hadal ku soo celiso hal dharbaaxsho ama hal feero kugu dhufto ayaad nafta ku waayi kartaa ama aad xanuun kugu sababi karo ku mustaqbal seegi kartaa. 50 jiri wuxuu jecel yahay in familkiisa iyo qaraabadiisa la yiraahdo ayaga baa boqran oo xaqiisa lagama maro. Oo haddii aad tiraahdo walaashaaba sidan ahayd ama waxan baa sidan ahaa wuxuu ku leeyahay adaa qaldan. Oo 50 sano jira cimri dambe sugi maayo adun buu ku cadaabi. 60 jiri dhaqaale u daa oo dhaqaalaha dhankiisa ha kala hadlin oo ha dhihin biil baa la rabaa, cunug baa halaysan, meel bay xanuunayso, magac baan u baahanahay iyo balay kale oo uga sheekaynin. Oo 60 jiri lacagta aad buu ugu adag yahay macaan. 70 jir haddaan u galno 70 jiri waa cimri oo maxaa la yiraahdaa cibaado baa u harsan. Laakiin hadduu mustaqbal ka galo ha kula doodin sidan bay ahayd iyo sidan bay ahayd. Guriga adaa ka madaxa adaana ka minja ah. Wuxuu ka yahay malahan hantida ka qaado oo gurigaaga dhaqo. 80 jir iyo 90 jir iyo 100 jirna guur iyo mustaqbal midna kaama jiree. Guriga hooyo haddaan dhinto gurigaada joog. Waana maam cibaado.